بسم الله الرحمن الرحيم dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba aad joogtaan waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan sanad wanaagsan waxaan rabaa inaan ka hadlo dhowr qodob oo ay ka mid tahay nolosha adag iyo marxaladaha dhalinyarada Soomaaliyeed ku sugan yihiin wadanka gudihiisa iyo wadamada dariska ay u nolol doontaan iyo waxa ay kala kulmaan iyo waliba madaxda maanta Ilaahay xilka u dooray ee umada Soomaaliyeed ay ku qanacsan tahay ee guud ahaan la isku raacay waxa la gudboon inay wax ka qabato marxaladaha aan soo noqdo ee wadanka gudihiisa dhalinyarada ay ku sugan tahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ku sugan tahay marxalada adag oo ay ka mid tahay shaqo la'aanta oo ay ka mid tahay cabsi fara badan oo ay ku jiraan aragtiyada isdiidan ee dadka maamulada dawladda iyo systemka dawliga ka soo horjeedo iyo dawligii oo in naftirkeeda ka soo horjeeda dhalinyarada aragti ahaan ka aragtiyo duwan ay ka mid yihiin kuwa diimaha aragtiyadooda isku haystaan marka marxaladahaasi waxaa ka aad ku adag shaqo la'aanta yaa aad ugu weyn wadanka gudihiisa oo aad ugu badan oo dhalinyarada inteeda badan ay uga hayaamtaa oo wadanka ay uga tagtaa oo kulligood ay muhaajiriin u yihiin gudaha waxay ka tirsanayaan in dhibaatooyin fara badan loo geysto in xabsiyada ay galaan iyagoo aanan jirin wax ay ku galeen magacii dhalinyarada Soomaaliyeed ee daadii dhalinyarada Soomaaliyeed ay u arkaan inay tahay dambi oo loo xiraayo adiga argagixisan kaaga shakinay argagixisada qoladii naftirkeeda argagixisada looga shakinay inay leeyihiin adiga jahjuusa tahay taa kale waxaa sii raacayo dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax baratay ee gudaha ku baratay ma haystaan dhiirigelin ku wajahan in shaqooyin loo abuuro ma haystaan wacyigelin fara badan ee loo yeelayo in dhalinyaradu ay ku dhiirato inay dalka sii joogaan dhalinyaradu wadanka ka wada haajirayaan laakiin waxaan rabnaa marxaladahaas oo dhan meelaha ay u haajirayaanna dhibaatooyin fara badan ay kala kulmaan xabsiyada ay galaan waa la jirdilaa qaarkood saxaraha ay ku baaba'aan marka quruxda iyo haybada qofka bini aadamka waliba qofka dhalinyarada ah wuxuu karaama iyo ciise ku leeyahay wadankiisa joogitaanka iyo ku adkaysashada iyo go'aan qaadashada dhabtaana waa dhalinyarada waxa ay ka go'do waxa kale intuu u baahannahay dhalinyaradu inay isu diyaariyaan cidna kaama horeyso cidna kuma qodna cidna kuma maqna waana message-ka aan rabo inaan u gudbiyo wadankan waa wadan curduna ee hoggaan cusub loo doortay waa wadan 26 sano burbur ku jiray adkaysiga iyo dhabar adeega aad soo muujisay inaad wax baratid aad u soo muujisay inaad ku dhabar adeegto wadanka inaad joogto waa lagaaga baahan yahay midda kale oo ah in dhalinyaradu ay wadankii ka haajirayaan xabsiyada adduunka ee xabsiyada wadamada Afrikaanka ay ku jiraan wadamo badan oo aan tagay halka ay dhalinyaro badan oo Soomaali oo ku dhiboon runtii way xanuun badan tahay inaan mar waliba arko qof dhalinyaro oo dhibaataysan way xanuun badan tahay inaan arko qof ku dhibaataysan wadan oo wadankiisa ahayn maxkamad aan la saarin ee xabsiyada ku jiro message-ka aan rabo inaan madaxda dalka Ilaahay u doortay aan u sheego waxa loo baahan yahay inay abuuraan shaqo abuur dhalinyaradu sameeyaan waxa loo baahan yahay in dhalinyarada intaan la eg ay hagaan because bini aadamka Ilaahay ama dal agabkiisa iyo hantida uu haysto waa dadkeen waxaan ka nahay 73% marka tirada intaas leegi awood intaas leegi Ilaahay la siiyay waan garan karnaa inta ay la eg tahay dhalinyaradu message-kooda waxaan leeyahay kan adiga iska leh Soomaaliya adaa iska leh Soomaalinimadaada inuu ku faantiso waa muhiim aragtida guud ee la xambaari karana waxaan aaminsanahay inay tahay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay u diyaar garowdo in dalkan ay aaminaan madaxdana ay noqoto madax u hogaansata ama ogaata aragtiyada bulshadooda iyo waliba Soomaalinimada iyo dhalinyaradan in la gaadgareeyo ee la hago ee loo sameeyo waxyaabo muhiim ah sida shaqo abuur loo sameeyo dhalinyaradu wacyigelin fara badan u baahan yihiin naftirkooda dhalinyarada ka soo horjeeda dawladda ee nidaamka dawliga diidan waxay u diidan yihiin cid soo hagtay weeyaan waxay la yihiin qof u sheega inta loo sheego kale intay la yihiin dhalinyaradu muhiima Soomaalida waxaan aaminsanahay oo xaqiiqdina ah oo taariikhdana ku xusan inay ahayd 13 dhalinyaro waxa keenay xornimada dalkan iyo quruxdan iyo magaca Soomaalinimada maanta adduunka dhan loo yaqaanaan ee aan Soomaali ku wada nahay marka waxaan leeyahay meel walba aad joogtaan fariinta madaxweynaha
حليا وأود أباهن تهاي وأود الكوب بهاي هاي dhalinyarada وأود هنتي umadu leedahay toddobaatan iyo 3% bulsho waa wadan dhalinyara ka faa'iideysan maskaxdooda aqligooda garaadkooda xikmadooda awoodooda kartidooda ka faa'iideysan dhalinyarada Soomaaliyeed waa dhalinyaro karti badan waa ognahay marxaladaha uu soo maray wadankan dhalinyarada ay soo martay wadankii soo maray wuu baabi'i lahaa marka waxaan leeyahay assalaamu calaykum masajid intaan ka badan waa diri doonaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo dawladda Soomaaliyeed ha waarto dadnimada Soomaaliyeed ha soo noqoto horumarka Soomaaliyeedna aan ka wada qayb qaadano inagoo dhalinyaro